farmaajo ayaa u muuqda xilligan kala guurka ah nin ku guuleystay kala qaybinta siyaasiyiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana qaarkood ay noqdeen kuwa si gaar ah ugu shaqeeyo isaga siyaasiyiinta qaybtooda ayaa tilmaamay in qorshaha beledweyne lagu geeyay ciidamada uu ahaa mid sax ah halka kuwa kalena ay ka biyo diideen waana arrin horseedi karta isku dhac ka dhex aloosma bulshada reer Hiiraan gaar ahaan kuwa ku abtirsada magaalada beledweyne ee xarunta maamulkaasi farmaajo wuxuu mid kamid ah hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho dejiyay ugaaska beesha Xawaadle isagoo u qoray gurno joogto ah waxaana lagu leehayay inuu ka aamuso xaaladda cakiran ee ka taagan magaalada beledweyne waxa si taasi lamid ah hotel Muqdisho ku yaala dhawaan qol looga kireeyay Abuukar Xaaji Warse Maxuud oo labadii sano ee ugu dambeysay sheegayay in farmaajo uu dalka ku wado god dheer balse shalay mar uu hadlayay wuxuu tilmaamay inuu u tanaasulay dawladnimada Soomaaliya taasoo bidhaamisay inuu yahay shakhsi la iibsaday waqtigan siyaasi walba oo reer beledweyne ah wuxuu farmaajo cadow uga dhigay ninkii ku deegaanka ahaa waana tallaabo uu uga faa'iideysanayo si ay ugu suurta gasho kuraasta aqalka hoose ee uu ku boobi rabo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sida ilo ku dhow madaxtooyada ay inoo sheegeen hadda wuxuu wadaa qorshihii uu ku kala diri lahaa ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble iyo siyaasiyiinta reer Hiiraan maadaama Rooble uu doonayo inuu farageliyo arrinta beledweyne oo tabasho kala duwan ay uga timi waxa sidoo kale maalmaha soo socda la filayaa inay beledweyne gaaraan ciidamo si qarsoodi ah looga qaadayo Muqdisho kuwa oo lagu biirinayo tiradii dhawaan halkaasi la geeyay waana kuwa si gaar ah u sugaya amniga Fahad Yaasiin oo kursi xildhibaanimo uu beledweyne ka yaalo ciidamada dhawaan halkaasi la geynayo qaarkood ayaa noqonaya ergo lagu boobo kuraasta ay leeyihiin beelaha Soomaaliyeed ee dega gobolka Hiiraan waana dhaqan siyaasadeed oo cusub oo ay dalka ku soo kordhiyeen Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir dhinaca kalena waxaa xilligan shaki balaaran la gelinayaa in doorashada golaha shacabka lagu soo gabagabeeyo inta lagu guyo jiro bisha February ee nagu soo wajahan kuraasta golaha shacabka ee la doortay ayaa aad u tiro yar marka loo eego kuwa harsan waana caqabad keeni karta in doorashada ay ka dib dhacdo waqtigii loo cayimay dhawaan markii ay Muqdisho ku heshiiyeen golaha wada tashiga qaranka ilaa iyo iminka guud ahaan xildhibaanada la doortay ayay tiradoodu gaaraysaa 75 mudane waxaana dhiman 200 oo kale iyada oo kuraasta qaar aysan beelu heshiis ku ahayn qaabkii ay doorashadoodu ku dhici lahayd ama dadkii ku matali lahaaba inkastoo doorashada dhacday ay boob ahayd haddana maamulada kuraasta ugu badan doortay waxaa kamid ah kuwa gobolada waqooyi oo qabtay doorashada 24 kursi halka koonfur galbeed ay dooratay 17 mudane waxaana 15 kursi laga doortay maamulka Jubbaland Puntland ayaa qabatay doorashada 9 kursi halka Galmudug ay dooratay 8 kursi waxaana ilaa waqtigan doorashada golaha shacabka bilaabin maamulka Hirshabeelle iyadoo beelaha banaadirigana aysan wili guda gelin doorashada kuraasta ay ku leeyihiin aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya caqabada kale ee doorashada ragaadinaysa ayaa waxa ay noqon kartaa in kuraasta dhiman badankood lagu dooranayo deegaan doorashada labaad waxaana jira deegaano aan la tagi karin sababo amni iyo khilaaf siyaasadeed oo ka jira arrimaha aan soo xusnay badankood waa kuwa qasbaya in golaha wada tashiga ay mar labaad isku soo laabtaan si ay waqti kale ugu cayimaan doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya oo sida markaasi iminka la rumaysan yahay ku socota hanaankii boobka ku sifaysnaa halka waqtiguna uu gabaabsi yahay